xubinta beerku waa mid soo saarta tamar wuxuu qabtaa shaqooyin kala gedisan oo muhiim ah soo saaridda xaddi borotiinna cholesterol iyo bile kaydinta fitamiinada macdanaha iyo xitaa karbohaydrayt sidoo kale wuxuu burburiyaa sumaha dawada iyo kuwa sida dabiiciga ah oo habka metabolism soo saaro kuulaalinta qaabin wanaagsan beerka waa u muhiim joogtintiisa caafimaad kafayga waa mid ka mid ah cabitaanada ugu wanaagsan ee loo cabo horumarinta caafimaadka beerka daraasado ayaa ina tusaya cabidda kafaygu ay tahay mid ka hortagta xanuunada ama cudurrada beerka xitaa dadka iyagu dhibta hore uga qabay xubintan ama beerka cabidda kafayga waxay yareysaa samaysanka kasarka beerka bararka iyo xaydha ama duxda beerka waxa ku jirta sidoo kale antioxidants awood u leh yaraynta free radicalska kuwaas oo dhaawici kara unugyada beerka canabka cilmi-baadhis ayaa lagu xaqiijiyay in bani'aadamka iyo xayawaanku canabka iyo waxyaabaha laga soo saaro siilka canabka ay ka hortag u yihiin dhaawaca beerka iyo soo qaadida antioxidantska iyo la dagaalanka bararka beerka lowska duxda iyo nafaqeeyayaasha ayaa ku badan waxa ku jirta antioxidants vitamin E iyo isqalafyo kale oo waxtar leh oo muhiim caafimaadka wadnaha balse wuxuu leeyahay awood kale oo ah beerka baaritaano lagu sameeyay dadyo qaba xanuunada beerka ayaa la arkay isticmaalkiisa kadib lowska natiijo wax ka oola lowsku wuxuu horumariyaa enzymeska beerka oo badi qaabilsan shaqada beerka duxda kalluunka waxa ku jirta omega 3 fatty acids oo dux caafimaad taas oo rida bararka iyo in la xiriiriyo hoos u dhigida khataraha cudurrada wadnaha duxda kalluunka sida la sheegay waa mid waxtar u leh beerka waxa hubaala in daraasada lagu arkay inuu ka hortag u yahay duxda samaysanta joogteynta enzymeska beerka si caadi ah la dagaalanka bararka iyo horumarinta insulin saliid saytuun waxa loo tixgeliyaa dux caafimaad saliid saytuunta sababta ayaa faa'iidooyinkeeda badan ee caafimaad daraasado ayaa hoosta ka xariiqay in saliid saytuunta isticmaalkeedu uu hoos u dhigo duxda beerka sar u qaadida qulqulka dhiigga iyo horumarinta heerka enzymeska ee beerka shaaha waxaa si mug iyo baaxad leh loogu tilmaamaa mid faa'iido caafimaad leh laakiin cadaymo ayaana tusaya inuu leeyahay faa'iido kaliya oo beerka daraasado ayaa xusaya in shaaha madow iyo green tea ay horumariyaan enzymeska iyo isu dheelitirka heerka duxda beerka carrot waa mid si xad dhaaf ah ay ugu badan tahay maadada beta carotene cunitaankiisu wuxuu sare u qaadaa shaqada iyo inuu ka caawiyo guud ahaan shaqada beerka toonta kaliya waa mid xaddigeedu yar yahay taasoo awood u leh dardargelinta shaqada enzymyada beerka iyo inay ka caawiso in jirku dibadda isaga saaro sunta toonta sidoo kale waxa ku jirta xaddi badan oo lysine iyo selenium labadooduba si dabiici ah oo isku dhafyo beerka nadiifiya avocado waxa ku badan nafaqeeyaal waana cunto mucjiso leh waxay ka caawinaysaa in jirku soo saaro glutathione isku dhiskan iyo muhiim ah in beerka laga safeeyo sumaha khataraha badan tufaaxa waxa ku badan tufaaxa pectin tufaaxu wuxuu hayaa chemicals kuwaasoo faa'iido u ah jirka iyo inay ka nadiifiyaan iyo sii deynta sumaha ka imanaya dheefshiidka tanna waxay beerka ka dhigaysaa mid gacan weyn ka geysta xaddiga badan ee sunta ah xilliga safaynta